Dagmada Hobyo waa mid kamid ah degmooyinka dastuuriga ee gobolka Mudug waana degmo fac weyn laguna tiriyo sida ay qoreen taariikhyahanadu inay tahay mid jiritaankeedu uu soo bilowday in ka badan hal qarni iyo bar ka hor taasina waa mid muujinaysa inaysan helin wax qabad waayo marka la isbarbar dhigo muuqaalka degmada iyo soo jireenka degmadaasi ee muddada fog maahan mid u qalanta waana mid inta badan loo sababaynayo musuqmaasuqa dalka ka jiray Dagmada Hobyo waxa ay soo martay marxalado kala duwan ay ugu horeeyaan colaado ku salaysan qabaa'il iyo dhibaatooyin fara badan oo bulshada deegaankaas u diiday inay ku hamiyaan higsiga mustaqbal wanaagsan ay u qaadaan wadada horumarka taas oo ay kamid ahaayeen falalkii burcadbadeednimada ee ka jiray sanado badan degmada Hobyo keentayna in degmadaasi loo aqoonsado mid kamid ah gabadhyada ugu waaweyn ee kooxahaasi ku lahaayeen gobolada dalka Soomaaliya qaarkood balse xilligani degmada Hobyo ma ahan sida ay ahaan jirtay muddo fog waxaana ka muuqanaya isbedel dhinacyo badan oo ay ku haminayaan bulshada degmadaasi inay ku gaari karaan horumar iyo mustaqbal nololeed oo ka duwan kii la soo maray haddaba isweydiinta waxa mudani waa maxaa keenay rajadaasi dhabtii rajada iyo isbedelka ka muuqanaya degmada Hobyo ayaa ah sida in badan oo kamid ah bulshada deegaankaasi oo aan wax ka weydiiyay ay sheegeen inay tahay mid ka dhalatay booqashadii uu Madaxweynaha Qaranka ku tagay degmada Hobyo dabayaaqadii bishii Janaayo ee sanadkan iyo daahfurkii mashruuca dhismaha dekada Hobyo taas oo ay sheegeen inay furaw noqoto in degmada Hobyo ay ku soo dhiiradaan dad badan oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib kuwaasi oo doonaya inay maalgashiyo kala duwan ka sameystaan tartankaasina waxa uu wadada u furay inay hurdada ka kacaan shacabka iyo maamulka degmada Hobyo isla markaana iyagoo iskaashanaya ay bilaabaan talaabadii ugu horeysay ay ku qaadayaan wadada horumarka taasoo noqotay inay iska kaashadaan dib u soo celinta bilicda magaalada waxa ayna ku guuleysteen inay hagaajiyaan isla markaana dib u dayactir ay ku sameeyaan wadooyin xirnaa in ku dhow 30 sano kuwaas oo ku yaalay gudaha degmada Hobyo dhinaca kale booqashadii madaxweynaha qaranku waxa ay sababtay isla markaana meesha ay ka saartay in uu soo dhamaado shaki fara badan iyo been abuur ku aadanaa in amniga degmada Hobyo uu yahay mid aan la isku haleyn karin taasina waa mid keentay in wufuud kala duwan isla markaana caalami ay ku inay tagaan halkaasi iyagoo qorsheenaya inay dowlad goboleedka Galmudug ay ka wada hadlaan inay maalgashiyo dhinacyo badan ku salaysan ka sameystaan degmada Hobyo wufuudaasi oo sida loo yahay ugu dambeeyay safiirkii dowladda Turkiga u jooga wadankeena Soomaaliya Mr. Olgan Becker gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Ali Axmed Cabdullaahi Fahad ayaa mar aan dhawaan kula kulmay degmada Hobyo waxa warbaahinta qaranka uga warbixiyay waxa ay ka dhaxleen isla markaana ay ku abuurtay booqashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku tagay degmada Hobyo ee gobolka Mudug horta sideedaba magaalo waxay magaalo ku tahay in bilicdeeda ay banaanka taalo Hobyo oo hore loo hakraday waxaan go'aan ku gaarnay inay Hobyo noqoto hooy quruxdiisa adduunka laga daawado sababta aan u yeelin waxay tahay magaalada waxay noqotay magaalo in dekad laga dhiso ay qorsheedu yahay magaalo dalxiis ah magaalo manaafacaad kala duwan ama resource kala duwan leh marka mar haddii magaaladu ay ballaaranayso dadkuna ay rabaan inay soo degaan magaalada waxa xaq loogu ah in bilicdeeda wax ka bedelno inta ay ballaaran oo aysan faraha ka bixin aan u sameeyno system magaalada wadooyinkeeda jirdiinooyinkeeda iskuulada meelaha noqonaya ama maartay meelaha dawladda ay degayso meelaha ganacsiga loogu talagalay meelaha warshadaha loogu talagalay iyo meel walba oo yani qaabka adduunka caalamiga laga isticmaalo magaalaha inaan u sameeyno ugu talagalay waana tankeenta in hawsha sameeyno Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo